ilmaha hadda wali waa iibsataa hadana kaliyaha ka soo marka waxa ku bartaanaan abuukar waxay dhahday kiligaada hadda gadata kabaran hay dad waaweyn ku xiranahay waan kugu xiraa lacagtaadan kaasha lagu siiyaa dhammaantiinba muuqaalka la gareeyay cid walba muuqaalka la gareeyay subhana allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuuraha leedahay ilaahay inuu sahlo ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaadda uu xifdiyo inta awlaaddoonkan ilaahay awlaad baariya hasiyo inta gurdoonkana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee bahasiyo qof walba gambaleelka furtaa muuqaalkana la gareeyay waxaan allah سبحانه وتعالى عن كجبر ينا إن جنة الفردوس على إلهي وكوا مريو دنبيجود والد كودنا بوينا هذا فقف والبنا مراد كلية إلهي سدقدقة هاوجس على حاسد كوحلين هاي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح. طبعا أول سنة دعوة القصور وهذا هل كان نجد أو نسان وهرسعود ميديا أدمر الكداوتان برنامج كردوان ما أنت برنامج كنا وحن كوينا هنا أبوكر أو لجو حراء مجلة مقدشة سببها الله حراء يا برنامج كنا قصة قادم doona maxaa ka jira inay caruuro dhacdo ama caruuraha ay qaadato ee kaliya ay ka iibsato iyo in ay faafiso diinta masiixiga arrimaha xasaasi ayaa idinka haynaa oo dad quuro ah oo hana abuukar xiriir weyn la leh ayaa arintaasi inoo sheegay ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa maxaa ka jira in ay arrimaha hani abuukar ee ka tahay iska ciyaar iyo malayacni dadka ku ciyaarayso ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa fadlan waxaa si sharaf leh idinka codsanayna channelka subscribe saartaan muuqaalka aad like saartaan comment iyo hoos inoo soo qortaan waad ku maasantiin daawashada aad daawanaysaan barnaamijyadeena isku soo laabasho wanaagsan hana abuukar oo kamid ah markii hore loo heystay in ahayd samafale dadka caawiya ama xuquuqul insaanka u dooda ayaa la sheegay in lagu xiray magaalada Muqdisho sabab la xiriira in ay caruurta yaryar ee qaadato ama ay xado iyo in markaasi xada ay ka baxsto ee wadnaha ama beerka iyo arin kale oo jirtay oo ahayd in ay faafiso diinta masiixiga arintaasi ayaa soo noqnoqotay isbuucyadii ugu dambeeyay ee hana abuukar ee ku wado magaalada Muqdisho hana abuukar ayaa imaanaysa marar badan magaalada Muqdisho markay timaadana waxaa la waayaa caruuro aad u fara badan arintaasi ayaa noqotay arin la yaab iyo argagax leh tan iyo markii timaaday hana abuukar ayaa magaalada Muqdisho lagu arkay ciyaalo badan oo la baafinayo ilaa hadda la laasan yahay iyo ciyaal kale oo lagu soo qabtay magaalada Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb oo inta laga waday magaalada Muqdisho waxa halkaas tagay hana abuukar kuma dhigna hal shakhsi kuma dhigna hal qof waxa ku dhayan Soomaaliyo idil wixii jiro waxba ka jiro ay Soomaalida tiraada hana abuukar ayaa markii hore ahayd gabadh aad u akhlaaq xun oo xashiishka ama siyaarka iyo qaadka inta social media soo dhex fadhiistay ku cabi jirtay coladeedana banaanka keesan jirtay xubinteeda taranka kaliya ay qarin jirtay ilaa qaybta kore way ka qaybnaadi jirtay hana abuukar waxaa jiro sawiro ama muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada aan hore dad u arkin oo haddana baraha bulshada la soo galiyay markii dambe ayna soo hanuuntay hana abuukar ee howlahani xuquuqul insaanka ama dadka caawso ee ku sheegtay in dadka ku caawinayso dadka dulman waxay koolka soo gelin jirtay ama facebookeeda ku wareysan jirtay ilmo yar oo dhahayaan aabahay ayaa ikubsaday oo ah arimo la yaab iyo argagax leh oo dadka Soomaalida arintaasi ay rumaysan karin gabardheesa adeerkii ayaa ikubsaday gabardheesa abtiga ayaa ikubsaday gabardheesa walaalkii ama waxyaabo la yaab leh ayna baraha bulshada dadka la wadaagi jirtay taasi ayaa noqotay arin been abuur ah ee dadka ka been abuurinaysa waxay rabtaa si dadkaasi loo wado oo loo geeyo qurbahaasi ayadana lacag kale ugu sii sameeyso ayaa la yiri hana abuukar warqado iyo la sheegay in hana abuukar ay ku xiran tahay ee magaalada Muqdisho sabab waxa ay u xiran tahay hana abuukar wixii ku soo kordha wararkani waxaad ka daawan doontaan horsocod media ee daawada muuqaal uu kaga hadlayo hana abuukar ee xirta shiiqa oo warbixino badan ka haya hana abuukar oo horay saaxiibo ama walaalo aad isku dhow ahaayeen oo markii dambe ka soo horjeestay waxyaabaha hana abuukar ee ku wada bulshada Soomaaliyeed wariyaal badan oo caan ah ayaana ka hadlay arinta hana abuukar ee ku wada magaalada Muqdisho waxaa la isku raacay hana abuukar in ay magaalada Muqdisho ku wado in caruurada qaadato dadka qaar waxaan u sheegaynaa in ay ka digtoonaadaan caruurtooda ayna guryaha ay ku haystaan
arrintan inta ay socoto ayna indha ay ugu hayaan caruurta yaryar ee la iibsanayo. fadlan muuqaalkana sii sheergaraya si ay bulshada Soomaaliyeed u sii gaarto. muuqaalkana like saara, comment hoos inoogu soo qor. waad ku mahadsantahay daawashada barnaamijyada. shay gabadh wadata dhalashadii Soomaaliyeed sheeganaysa, wadata passport Swedish, ku hanjabasa in ay qaadaso caruurtii Soomaaliyeed oo weliba xoog ku qaadaso sida ay ku qaaday ku xadana sharaxday. idinkoo maanta gacanta ku haya haddii shakhsiyaadkaas aan magacaabo ama aad shakhs qabiil ku sii daysaan ama macruufo ku daysaan, ogaada waxaad dhaawacdeen qalbiyada dad Soomaaliyeed oo qurba joog ahaa hamina u qabay inay wadankooda yimaadaan. taas ogaada, taas waa inaad ogaataan. mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka dheeraadaan weliba labada mas-uulaan magacaabo, waa Fahad Yaasiin iyo wasiir Faqi. labadooda waa mas-uuliyiin Soomaaliyeed, ixtiraam anaa u haya. waxaan ugu baaqayaa inay ka dheeraadaan arrinta Hana Abuukar. dadka Soomaaliyeed haddaba mid baan rabaa inaan idin fahansiiyo. ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo, yaan la bedelin oo arrinta laga dhigin qabiil. Hana cid qabiil ku eryanaysaa ma jirto. anigu qabiilka daaro dhulbahanta baan. Hana intay soo baxday magaalada aan ka soo jeedo dad joogay wax ma yeelin, wax ma dhibaatay. anigii Hana best friend baan ahay, dad walaalo camal baan ahay. waxay dhibaataysay ee aan ka gubanayay ee aan saaxiibtinimadayadii iyadoo sawiradeedu soo galin jirtay aan ku tuuray, waxay ahayd dhibaato ay u geysatay dad Soomaaliyeed oo ugu horeysay gabadhii Jarmalka ka soo wacay oo u dhalatay beesha Hawiye, khaasatan habar gidir Sacad. markaan ogaaday waxa ay ku samaysay bini'aadnimada ka baxsan ee gabadhaa ku samaysay, gabadhaas oo iyadu dhibaato iska rabbaani ay haysatay, ilmo yar oo ilmo dhashay ah, waan ka gubtay. isku qabiil lama yihin, waaniga idin sheegay. ilmihii kale tir aabbu kufsaday, isku qabiil ma yihin, aabiisa kufsaday. kuwan aabahood maanta Muqdisho ku sugan yahay ee Canada ee la laayahay, isku qabiil ma yihin. yaan la markaa loo bedelin haba yaraatee wax qabiil la yiraahdo. qof qabiilkayga ah aan ka soo jeedo oo Hana dhaawac u geysatay ma jirto, laakiin waxay u geysatay dad Soomaaliyeed oo anigu Soomaali ahaan aan ugu damqaday. yay u geysatay. marka wax qabiila arrintaas yaa loo tarjumay, yaan loo bedelin. qofka doonaya inuu u bedelo wax qabiila oo yiraahdo qabiil baa lagu ereynaya ama qabiil baa lagu xidha ama iyada lafteedu ay qabiil isticmaalayso, ogo waa beenaale caado qaataa lacagta ay dadka ka dhacaysay, bini'aadanka caruurtooda ku gadasay, organka ciyaalka ku iibsanaysay, caruuraha xataa kuwaas wax ka siin jirtay oo ku quudin jirtay. waa kadaab qofkaas.